صادق جون iyo Farxaan Qaroole maxaa laga yaqaanaa dadkan dadnimadooda maxay halkani waa hanolaato barta bulshada Soomaaliyeed صادق جون wuxuu ahaa jiray Mooriyaan caana oo la yaqaano dilal badan geystay wuxuu caan ku ahay waqtigaana xasuusane internetku ku jiraabay haddaan ogaala su'aashaas inay weydiinayaan waa maraadin lahaay arda iskool ka timid oo caasi saaran oo hal mar baas ku xarqaamay isagoo dabcan ujeedadaas ka tamaan dadka uu dili rabo baawarkaasi qaldan meesha u soo galay 8 miya ma qamsa 12 ayaa dhimatay waa arday ah waa waqtigaas 98 miya ma qam hay 90 iyo adiga oo 90 iyo 8 meelaha sano malay laakiin internetka u jirta caan weeyaan inuu dilay wax qarsoon ma marka nin dadka laayo ah marka dadka laayo la Kristo waxa jiro ilaa 3-4 qoys oo ka bacdi marka waxaan geystay aniga si maadaama aan asagu dhibana u ahay wuxuu sameeyay ila soo xiriirno ii sheegay inuu dadkooda asaga lacag la siiyo dilay marka wuxuu ahaa dilay la Kristo oo Mooriyana ka bacdina sidaas ayaa qoyskiisu ugu la carareen Yurub markuu askar dad laayay ardadan askarta ardadan oo laayay kuwa waxa jiraan dhaawaca oo ilaa hadda sariira saaran oo la heli karo waqtigan la heli karo hadda oo paralyze noqday si lagu ogaado markaas inuu ardada xasaas ku furay tay wixii waaba laga xaalada wax qarsoon ma ahayn woo dadkii woo laayay waa lagu soo baxay wixii waa laga xaalay sababta uu baxay wadanka looga saaray asaas ahayd waay darajada generalnimo yaa siiyay darajada generalnimada waxaa siiyay nimanka hadda wadanka jooga madaxweyne xasan sheekh baa u soo bilaabay nin firfircoon oo aad loo jeclaayo wax qabadkiisa nin askarinimadiisa iyo geesinimada dhiiraantiisa la jeclaayba u ahay sidaasaana lagu siiyay darajada generalnimo ka bacdiina dawladana ku amaal marisay maadaama uu dadka laynayo wuxuu ku amaal marisay geesinimada iyo arxan darrada waay sidaas oo mudnaanta ku yeeshay ma jirtaa maanta wuxuu haystaa malaayiin dollar waay wuxuu xamar intaas guriyo ka gatay ka dhistay Djibouti guriyo ka dhistay Turki guriyo ka dhistay hani waxa soo dhan wuxuu ku soo askari yar oo madaxto ciidanka gobolka Banaadir oo madax ka yahay dhaqaalahaas wuxuu ku sameeyay waxa waaye dacmiga laga siiyo dadka uu soo dilay sida looga gato iga dadka waay ma jirtaa marka inuu yahay nin haysto dhalashada Ingiriiska oo haysta yes waa dhalashada Djibouti aan haysta Soomaaliya oo haysta xogta aan hayo baaritaan weyn baa lagu wadaa يوم من الأيام من بنانك waxaan arkay iyadoo ilaa qaramada midoobe la gaarsiiyay oo arinta dawladdu ay ka difaacdo lacag badan ay ku bixisay aad iyo aad haye arintiisa waa la baaray baarisa ku socoto dawladdan Farmaajo wax badan ay dul dhigtay laana waxay ogtahay hadii ninkan la qabtay maxkamad la geeyo ama cadaalad la horgeeyo kuwa kale ku xiga uma dagaalami doonaan bari cadaalad oo ka cabsanaya marka nin kasta waxay ku dhiiri gelinaysaa waan ku garab taaganahay waana kula dhimanaynaa laakiin uma malaynayo inay macno weyn ku fadhiso geesiya laakiin aan wuxuu aabayeela sharcina ana qoraygu la mid yahay bombada dil rido waa dhacaya hadan la ridina waa aamusaya bini'aadan sax ma waa mashiin marka wuxuu isticmaal u leeyahay dad qof aan dawladnimo iyo sharci lahayn oo isticmaal u leeyahay marka dadkan in la abaabulo oo ragga noocaana la isku keeno see looga shaqeeyay see loo soo xulay dadka noocaana arxan darrada samayn kara Soomaaliya waxay tiraa geesi isma qariyo mise horor isma qariyo ama tuug isma qariyo qofku wuxuu yahay hora laga ogaanaya marka de qof kasta waa la yaqaanaa Saadaq John inuu taariikh buu leeyahay dilaayo ahaa jiray waa la yaqaanaa wiilka yarkaana de nin shaqeynayo wax badan lagu la dagaalamay al-shabaab oo ahaa marka hora laga yaqaanaa dadka ay yihiin iyo nooc ay yihiin tajribadii iyo testigii koobaad laga sameeyana waxay noqotay inay yihiin dadan damqaneen damiir lahayn oo bini'aadan ah si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid